السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أتقوى مجال مقدشو وائم هذا أنا عافمات قبو إن هذا ما سنتين دلنيرة رير سومالان أو يوسوي سيربورك أنت قفوا يتجنيت معنته هذا ما سنتين أو حلوه استبحث أنا هب جيم كعدي لين ليش مقدشي سومالان مدورة أنا جنا وحدها إن مقدشي منا قدر صناعي منها وأنا رون استيل وأتجنا مقدشي منا قدر صناعي منها إلا استيل أتجنا فأنت سومرك أنت سلويس تحلي ده أيدي كارد دولة ده هيستي أنت كان أيدي كارد صبي دولة أو شقسة علن كهستاسان ويا بنا ولي دولة أنت وش غيبين علينا دوش خلايا سومرك أصحابي وأنا وتقوى إن لايف أسوكلي دونا حرك بعدي أرنت المسترنا حق الصعود الحمد لله وأنا في عنها mid ka mid ah gabdhaha caanka ka ah baraha bulshada taasi oo isugu magacowday Mrs World isla markaana social media aad loogu xiran yahay oo ay ku taxan yihiin in ka badan 1 milyan oo qofood ayaa lagu soo waramayaa in lagu xiray madaarka weyn ee Cigaal Airport ee magaalada Hargeysa ee Somaliland xilli video ay ka soo muuqatay oo ay kaga sheekaysay xaaladihii halkaasi ay kala kulantay waxa ay sheegtay in su'aalo weydiin kadib ay iyadu la kulantay in sarkaal amaba dhowr markaasi saraakiil ah kuwaas oo gaaraya ilaa 60 kuwaas oo siyaabo kala duwan wax uga weydiinaya ujeedka safarkeeda sidoo kalena baaritaan ku sameeyay telefoonkeeda dabagalna ku sameeyay muuqaalada ugu jiray telefoonkeeda iyo muuqaalada ay soo dhigaysay barteeda YouTube-ka barteeda aan iraahday TikTok-ga waxa ay sheegtay in filan waa ay ku noqotay markii ay ka degtay Cigaal Airport halkaasi oo ay ku soo xoomeen gudahana ay dhigeen saraakiil aad u tiro badan kuwaas oo ka kala socday waaxyaha kala duwan ee laamaha ammaanka Somaliland baaritaan ku sameeyay ka hor inta aysan xuriyadeeda dib u helin waxa ay sheegtay in su'aalo dhowr ay weydiiyeen ujeedka safarkeeda iyo sidoo kale waxa ay u timid waxaana dadka qaar rumeysay in inantan oo ka soo jeeda magaalada Muqdisho aad markaasi loo beegsaday soo la xiriiro Soomaaliya oo Muqdisho oo ay iyadu halkaasi ka timid haddaba Somaliland oo aaminsan in ay ka go'day inta badan Soomaaliya qaybaheeda kale oo ay ka madax banaan tahay oo isugu dhawaaqday wadan madax banaan ayaa waxa alaba ay wadankeeda ama magaaladeeda Hargeysa ka mamnuucda in dadka kala duwan siyaabaha kala duwan u soo socdaalayo iyada oo qaarkood markaasi u aaneynayso in ay yihiin dad dana gaar ah wato ama dad markaasi dawladda shisheeye u shaqeeyo mana ahan markii ugu horeysay oo caburin iyo sidoo kale xarig markaasi lagu geysto gudaha magaalada Hargeysa shakhsiyaadka halkaasi soo gaaraya ee ka soo jeeda gobolada kale ee Soomaaliyeed haddaba sida aynu ognahay Somaliland waxa ay farakulul ku haysaa mudooyinka ugu dambeeyay warbaahinta iyo wariyaasha iyo dhamaanba dadka social media wax ku qoro iyada oo markaasi ku amaba xarigooda u aaneynayso arrimo kala duwan oo sharci darro ah oo ay ku tilmaameen in warbaahinada ay gacan ka geysanayeen aadna u bunbuninayeen sidoo kalena ay lid ku ayeen horumarka iyo qarannimada Somaliland si kastaba ahaatee haddaba Najmo gabadhan lagu magacaabo Mrs World oo magaceeda kale yahay Najma ayaa waxa ay sheegtay in arrin aad u falxun ay ahayd in lagu xiro gudaha magaalada Hargeysa waxa iyadoo careysan isla marhaantana ka hadlayso raggii halkaasi ay kula kulantay iyagu su'aalo kala duwan weydiiyay qaarkood waxa ay sheegtay su'aalahaasi in ay isugu jireen in wax laga weydiinayo dabagalna lagu sameeyay haddaba safarkeeda iyo in ay iyadu ka tirsan tahay dawladda Soomaaliyeed amaba ay tahay sarkaalad ka shaqeysa mid ka mid ah wasaaradaha ama waaxyaha kala gedsan ee magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir waxa ay sheegtay in baaritaan ay ku sameeyeen sidoo kalena ay ugu goodiyeen in ay dib u musaafirin doonaan sidoo kale waxa ay sheegtay in xarigeeda uu aad ugu qotomay arrimaha dhanka baasaboorka maadaama ay sheegtay in ay ku tilmaameen baasaboorka Soomaaliya in aysan gabi ahaanba aqoonsaneen oo uu yahay baasaboor iyaga aynan doonaynin dadka sita si kastaba ahaatee arrimahaas ayaa ka mid ah waxyaabihii ay ka hadlaysay Mrs World dadka qaarna waxa intooda badan xarigeeda ka falcelinaya ay ku tilmaameen mid ay ku habooneed maadaama ay sheegeen in dhaqan xumo ay u timid magaalada Hargeysa ee Somaliland haddaba Mrs World oo lagu tiriyo gabdhaha inta badan muuqaalada kala duwan ku soo bandhigo barteeda TikTok-ga
xilliyada qaarna la sheego in ay tahay gabdhaha aanu markaasi aadka u asturnayn dhanka social media marka ay timaado iyadu aad loogu xanibaye sabab la xidhiiro waxyaabaha halkaasi ay u timid iyo ujeedka ay ka lahayd oo su-aalo kala duwan la iska weydiinaya. haddaba dadka qaarna waxay dhaliilayeen labiskii ay sidatay markii ay kasoo degaysay garoonkaasi cigaal airport, gaar ahaana marka ay muqdisho iyadu kasoo boqoolaysay oo ay ku sugneed garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho. waxa ay sheegeen in labis aanu habbooneen iyadu ay sidatay. si kastaba ahaatee haddaba waxaa caado ah in somalilan ay ka jiraan dhaqamo iyo sidoo kale xeerar kala duwan oo xakameeyo dadka halkaasi soo gala, oo qaarkood su-aalo lagu weydiiyo, qaarkoodna damiin looga baahan yahay. waana qayb ka mid a waxyaabaha somalilan aada uga xakameynayso waddankeeda in markaasi sida sharciga uu qabo baaritaan iyo sidoo kale dabagal lagu sameeyo shakhsiyaadka imaanaya halkaasi iyo waxa ay u imaanayaan iyo arrimaha ka dambeeya. haddaba Miss Sual oo dhowaanahanba ka hadlaysay in ay safaro kala duwan ay iyadu ugu wajahan tahay dalkaasi Turkiga iyo qeybo ka mid ah caalamka, ayaa waxa ay sheegtay in ay iyadu markaasi process xagga Turkiga ay aada ugu howlaneed, howl kalena ay kasoo gashay magaalada Hargeysa oo ujeedkaasi ay u timid. waxaana ay sheegtay in markaasi shirkadaha kala duwan iyagu dhanka duulimaadyada u qaabilsan in ay intooda badan ay ku howlanaayeen sidii ay gacan uga geysan lahaayeen oo ay uga caawin lahaayeen sidii ay ku gaari lahayd magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. si kastaba ahaatee safarkeeda uu soo jiitay qaar ka mid ah dadka social media intooda badan ku xidhan, kuwa oo wax iska weydiinaya sababta ka dambeysay iyo xarigaasi waxa uu ku qotomay, iyo sidoo kale in ayban habbooneenba in qaab markaasi tuhun uu ku dheehan yahay iyadoo ay kusoo gasho gudaha magaalada Hargeysa, iyadoo labiskeeda dadka qaarba ay ka hadlayeen siyaabo kala duwan. inkastoo somalilan inta badan lagu xanto in ay aada ula dagaalanto dadka kasoo gelaya xagga magaalada muqdisho, maadaama ay u aragto in intooda badan ay yihiin dad kasoo horjeedo in la aqoonsado ama ictiraaf ay helaan. si kastaba ahaatee arrimahaasoo idil waxay kusoo beeshamanayaan xariga imika yimid Mrs Sual. si kastaba Mrs Sual waxa ay carabaabday oo si kulul ay u dhalishay saraakiisha halkaasi ay kula kulantay. waxay sheegtay inay ahaayeen 60 qofood sida ay hadalka u dhigtay, waxaana ay sheegtay inay halkaasi ku xayirneed muddo ku dhow 6 saacadood sida ay iyadu hadalka u dhigtay. waxaana markaasi ay iyadu si weyn u dhaliilaysay sababta intaasoo idil halkaasi loogu hayay iyo baaritaankaasi xoogan oo ay ku sameynayeen. waxay sheegtay in ay uga shakiyeen inay tahay gabar markaasi Soomaaliya ka shaqaysa howlo xiriirna la leh dowladda ee ka dhisan magaalada muqdisho. arrimo badan ayay ka hadlaysay sida ay hadalka u dhigtay. waxay sheegtay in iyadu ay tahay qof markaasi youtuber ah ama social media caanka ah oo markaasi howlaheeda safaradeeda kala duwan inta badan ay yihiin kuwo madadaalo oo shacabkeeda ay doonayso in ay si qurux badan ugu soo gudbiso hadba goobaha ay joogto waxyaabaha ka dhacaya madadaalada iyo dadyowga kala duwan ee halkaasi ay kula kulmayso. waad mahadsantihiin. subscribe garee channelkan, like garee muuqaalkan iyo muuqaalada ka dambeyn doona. haddii ay weyne raalli ka noqdo waxyaabo badan ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa.